dadka qaar waxay garanayaan kaliya magaca Erdogan balse badi dadka ma oga qisadiisa la yaabka leh ee adkeysiga ka samaysan. maxaad ka og tahay taariikhda iyo nolosha Erdogan? ma la socotaa in waddada dhinaceeda uu biyo iyo rooti ku iibin jiray, xabsigii uu waqti dheer galay si uu ugu dambeyn u noqdo hogaamiyaha madaxda waddamada islaamka waqtigan, in aabihiisa uu isbuuc walba ka sugi jiray lacag ka yar $1 si uu magaalo joog uga dhigto. xitaa dadka qaar ma oga inuu ahaa xidig weyn oo kubadda cagta ah, sababtii uu ku diiday inuu u ciyaaro kooxda Fenerbahce oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dalka Turkiga, iyo sidoo kale ka hadalka sira badan oo aadan weligaa maqlin oo ku aadan nolosha madaxweynaha waqtigan ee dalka Turkiga. inta aanan guda gelin waxaan si weyn kaaga codsanaynaa haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro inaad like saarto si saaxiibo badan uu u gaaro, una sheergaray asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. Rajab Tayyip Erdogan waa madaxweynihii 12aad ahna madaxweynaha haatan ku fadhiya kursiga laga hogaamiyo dalka Turkiga. waxa uu ku dhashay degmada Kasımpaşa, taasi oo ka mid ah degmooyinka iyo magaalooyinka magaca iyo taariikhda weyn ku leh Istanbul. 26 bishii February sanadkii 1954. aabihiis waxaa loogu yeeri jiray Ahmed Erdogan, kaasi oo dhashay sanadii 1905 isla markaana geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 83 sano jir. sidoo kale hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Tanzil Erdogan, taasi oo geeriyootay sanadii 2011 markaas oo ay da'deedu ahayd 87 sano. Erdogan ayaa ku soo barbaaray kuna soo qaatay badi waqtigiisa caruurnimo magaalada Ra'iis, halkaas uu aabihiis ka tirsanaa ciidamada ilaalinta xeebaha. waxaa la sheegaa in qoyskiisu ay dib ugu soo laabteen magaalada caalamiga ah ee Istanbul markii Erdogan uu jiray 13 sano. Erdogan waxaa la dhashay oo walaalo la ah 3 wiil oo kala ah Mustafa, Maxamed iyo Xasan, halka sidoo kale ay la dhalatay gabar lagu magacaabo Faisal. madaxweyne Erdogan ayaa ka qalin jabiyay dugsigiisii hoose Kasımpaşa Piyali Primary School sanadii 1965, halka dugsigiisii sare uu kaga baxay Imaam Xaatib sanadii 1973. iskuulka Imaam Xaatib ayaa manhajkiisa waxbarashada uu ku salaysnaa barashada culuumta islaamka sida barashada iyo xifdinta quraanka kariimka, taariikh nololeedka iyo siirada rasuulkeena suuban, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyo weliba barashada luqadda Carabiga. Erdogan ayaa higsanayay inuu ka mid noqdo ardayda wax ka barata jaamacadda Ankara University, taasoo caan ku ahayd dhigista political science ama culuumta siyaasadda, iyadoo siyaasiyiin badan oo magac ku leh waddanka Turkiga ay wax ka soo barteen jaamacaddaasi. balse nasiib darro, jaamacaddan ayaan ogolaasho ama admission siin jirin ardayda ka soo baxa Imaam Xaatib, sabab la xiriirta inay fahansan yihiin in ardayda ka soo baxday iskuulkaasi aysan wax badan kala qabsan karin culuumta lagu bixinayo jaamacaddooda. kadib diidmadaasi, Erdogan ayaa mar labaad bilaabay dugsiga sare ee Ayub High School, kaasi oo manhajkiisu uusan ahayn mid keliya qaas u ah keliya barashada culuumta diiniga. kadib waxbarashadiisii dugsigiisii sare, Erdogan ayaa bilaabay jaamacadda Aksaray, taasoo hadda loo yaqaano Marmara University, isagoo ka qalin jabiyay kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka. marka dib loogu laabto dhallinyarnimadiisa, waxaa la sheegaa in Erdogan uu ku soo koray xaalado iyo duruufo aad u adag, isagoo aabihiisa Ahmed Erdogan uu siin jiray lacag gaaraysa 2.5 liira, taasoo u dhiganta wax ka yar $1 isbuucii. Erdogan ayaa la sheegaa inuu laamiyada waddanka Turkiga ku iibin jiray caagado biyo ah, isagoo markaasi ka faa'iideysanaya saxmadaha iyo dadka badan ee busteejooyinka baabuurta ka raacaya. sidoo kale Erdogan ayaa rooti ku wareejin jiray waddooyinka waddanka Turkiga si uu nolosha qoyskiisa u maareeyo. sidoo kale waxaa iyadana xusid mudan inuu ahaa madaxweyne Erdogan ciyaaryahan aad xariif uga ciyaarista kubadda cagta, iyadoo la xasuustay inuu kooxda kubadda cagta Fenerbahce ay isku day samaysay, taasoo ay ku danaynaysay inay la saxiixato Erdogan, balse aabihiis ayaa is-hortaag ku sameeyay oo diiday inuu ka mid noqdo kooxdaasi. madaxweyne Erdogan iyo xaaskiisa Emine Gulban ayaa ah waalidiinta 2 wiil oo kale ah Ahmed Burak iyo Nicmatin Bilal. sidoo kale waxa ay iska dhaleen 2 gabdhood oo loo kala yaqaano Esra iyo Sumaya. marka dib loogu laabto xasuusta bilowga siyaasaddiisa, waxa uu ka soo muuqday kuna biiray xisbigii loogu yeeri jiray magaca haliyada siyaasadda islaamka, taasoo ay xusid mudan tahay in xisbigani uu hogaamiyo ahaa Nicmatin Erbakan,
kaasi oo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga intii u dhaxaysay sanadii 1996 ilaa 1997. Erdogan ayaa xilka ra'iisul wasaarenimo awood looga faramaroojiyay iyadoo militariga waddanka Turkiga ay qasab uga dhigeen in kursigiisa uu ka dego, iyadoo markaasi la mamnuucay xisbiyada ku dhisan ama ku xeeldheer dhanka diimaha. doorasho la qabtay 27 bishii Maaj sanadkii 1994 ayaa Rajab Tayyip Erdogan uu ku guuleystay inuu noqdo maayarka ama duqa magaalada Istanbul, isagoo celcelis ahaan helay codad gaaraya 25.19%, markaasina waxay da'diisu ahayd sida la diiwaan galiyay 40 sano. guushiisii iyo hanashada kursiga maayarnimo isagoo ku guuleystay inuu wax ka qabto biyo la'aan ba'an oo xilligaasi ka jirtay Istanbul iyo wadooyinka waddanka Turkiga oo ahaa kuwa burbursan. sidoo kale waxaa iyadana aad loogu xasuustaa in Erdogan uu meel mariyay xeerar iyo mashruucyo lagu yareeyay wasaqda warshadaha ay hawada ku sii daayaan. muddadii uu ahaa maayarka ama duqa magaalada Istanbul, Erdogan ayaa ka dhigay magaaladiisa mid bilicdeedu ay aad u sarreyso, lana jaanqaadi karta magaalooyinka xilligaasi aadka ugu quruxda badnaa caalamka. waxqabadkiisa ayaa u horseeday inuu ku guuleysto abaalmarino fara badan oo maxalli ah. sanadku markii uu ahaa 1998 ayaa Erdogan lagu eedeeyay khudbad uu meel fagaaraha ka jeediyay inay sababtay kacdoon aad u fara badan iyo mudaharaadyo waaweyn oo maalmo badan ka socday gudaha dalka Turkiga. khudbadaasi kicisay dadka aadka u fara badan aadkana loo dhaleeceeyay ayaa waxa uu ka soo qaatay gabay uu lahaa Ziya oo ahaa qoraa, gabyaa iyo siyaasi caan ah oo aad looga yaqaano waddanka Turkiga. gabaygan erayada ku jira ayaa masjidka ka dhigayay xerooyin. sidoo kale gabaygan waxa uu minaaradaha masaajidda ku sifeynayay midiyo. gabaygan ayaa sabab u noqday in Erdogan uu xilkiisii maayarnimo ku waayo uuna ku mutaysto ganax gaaraya 10 bilood, walow cafis loo fiidiyey oo kaliya uu xirnaa 4 bilood. waxaase mushkiladda ugu weyn ay noqotay in laga mamnuucay in gebi ahaanba saaxadda siyaasadda iyo inuu musharax noqdo. taasi waxay ahayd xindaab weyn oo hortaagan noqoshada mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan Turkiga. laakiin kadib markii laga sii daayay xabsiga sanadkii 1999 wuxuu dib ugu noqday siyaasadda isagoo la midoobay xisbigii uu hogaaminayay Erdogan iyo saaxiibkiisa ayaa wada sameeyay xisbi loogu magac daray xisbiga cadaaladda iyo horumarinta. xisbigan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaanka sanadii 2002, balse xukunkii 1998 ku dhacay Erdogan ayaa u saamixi waayay inuu u safto una tartamo jagada ra'iisul wasaarenimo. balse nasiib wanaag waxaa bedel lagu sameeyay dastuurka waddanka Turkiga dhammaadkii sanadii 2002, waxaana go'aankaasi uu gebi ahaan basuuliyay kana taqallusay xukunkii saarnaa Erdogan ee ahaa inuusan musharax noqon karin waqti ka mid ah waqtiyadiisa nolosha. doorasho dhacday Maaj 9 2003 ayaa Erdogan wuxuu ku guuleystay doorashada jagada ra'iisul wasaarenimo ee dalkaasi Turkiga, isagoo la wareegay xafiiska May 14 2003. xilka ra'iisul wasaarenimo ayaa waxa uu hayay muddo gaaraysa 11 sannadood intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2014. dadka qaar ayaa ku fikirayay in xilligaasi ay ahayd dhammaadka waqtigiisa siyaasadda, laakiin waxa uu dhigay iskoor aan caadi ahayn. markii ay taariikhdu ku xusneed 10 Agoosto 2014 ayaa Erdogan wuxuu ku guuleystay doorashada iyo jagada madaxweyne ee dalka Turkiga, iyadoo muddadii uu xilka hayay lagu xasuusto isku daygii militari ee dhicisoobay, taasoo lagu inqilaabi rabay ama xukunka loogu tuuri rabay dowladda uu hogaaminayo Erdogan. sanadii 2016 bishii July, 2 sano kadib, waxaa mar labaad lagu sharfay inuu hogaamiye u noqdo waddanka Turkiga. ra'iiska waddanka Turkiga ee Erdogan ayaa haatan loo aqoonsan yahay qaa'id ama hogaamiye ruuxi ah oo dalkiisa iyo dhammaan caalamka Islaamka, waxaana lagu tilmaamaa hogaamiyaha Islaamka oo dhan, isagoo magacaasina ku hantay wadamqashada iyo u gargaaridda wadamada Islaamka sida waddankeena Soomaaliya oo aynu wada ogsoonnahay kaalintii uu ku lahaa horumarka dhaqaalaha aynu ku tallaabsanay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. madaxweyne Erdogan ayaa iminka tusaale u ah qof walba oo raba inuu hogaamiye noqdo, isagoo noloshiisa ka soo bilaabay meel aad u hooseysa, wuxuuna ka mid yahay hogaamiyayaasha farakutiriska ah ee dhammaan caalamka laga jecel yahay. waa hogaamiye degay qalbiga muwaadiniintiisa iyo guud ahaanba qalbiga ummadda Islaamka, waana haliye ay ku faanaan dhammaan muslimiinta. waana hogaamiye aan marna u jixin quwadaha ka awoodda weyn ee inta badan la sheego, waana mid la xisaabtama
waddan walba oo caalamka ah quwadduu doonaba ha lahaado. yeelkeeda daawade, haddii aad wax badan ka fahantay si aan u soo badinno muuqaalada noocaani oo kale ah, isku day inaad like saarto, iskuna day inaad sheergarayso. warbixintan waxaa diyaariyey al-ustaad maxamed kediye, anigoo Shaafino ah ayaa idiin soo jeedinayay. aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.